15 May waa maalin su'aalo badan dhalisay. Soomaaliya maanta halkee ay taagan tahay, halkeesa u socotaa? Dad badan waxay isweydiinayaan dhamaadka muddaxileedka madaxweynaha. Ma jiri doontaa doorasho mise dib u dhac kale? Maanta waxaan falanqayni doonaa xaaladda siyaasadeed ee hadda jirta, muddada saxda ah ee xilka, iyo waxa dhici kara 15 May kadib. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa la doortay 15 May 2022. Taasi waxay ka dhigan tahay muddaxileedkiisu waa 4 sano, laakiin dadka qaar waxay u fahmeen si khaldan in 15 May ay tahay dhamaad degdeg ah oo keeni karta qalalaase. Xaqiiqadu waa dhamaadka muddo sharci ah, laakiin nidaamka dawladda wuxuu u badan yahay kala guur habaysan. Siyaasadda Soomaaliya maanta ma fududa, waxaana jira khilaafyo u dhexeeya dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada, dood ku saabsan nidaamka doorashada, iyo amni aan weli xasiloonayn. Su'aashu waxay tahay diyaar mu yahay dalka inuu galo doorasho buuxdo 2026 mise mar kale dib u dhac kale ayaa imaan karo? Waxaa jira 3 shay oo suurtagal ah oo aad u waaweyn. Midda koowaad, doorasho ku dhacda waqtigeeda. Haddii la isku raaco nidaamka doorashada, doorasho ayaa dhici karta, madaxweyne cusub ayaa la dooran doonaa. Midda labaad, dib u dhac siyaasadeed. Hadduu khilaaf jiro, muddo kordhin aan rasmi ahayn ayaa dhici karta, ama heshiis cusub oo kumeel gaar ah. Midda saddexaad, qalalaase siyaasadeed. Haddii aan xal gaarin, waxaa imaan kara khilaaf aad u weyn, kalsooni darro ka dhalata shacabka iyo siyaasiyiinta. Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay siyaasad degan, hoggaan leh aragti fog, iyo shacab fiijigan. Su'aal muhiim ah, siyaasiyiintu ma ka hormarinayaan danaha qaranka, danahooda gaarka ah? Haddii la helo heshiis siyaasadeed, doorasho la isku raacsan yahay, iyo amni la xoojiyo, Soomaaliya waxay geli kartaa xaalad cusub oo horumar ah. Laakiin haddii kale, dib u dhac iyo jahwareer ayaa imaan kara. Marka la eego muuqaalka sare, wax walba waxay u muuqdaan caadi, laakiin marka gudaha loo fiiriyo, siyaasadda Soomaaliya waa mid qarsoon oo kacsan. Waxaa jira khilaafyo aan si rasmi ah loo shaacinin, madaxda dowlad goboleedyada oo aan si buuxda ugu qanacsaneen jihada dowladda dhexe, siyaasiyiin mucaarad ah oo sugaya fursad ay ku soo galaan saaxada, iyo loolan ku saabsan awoodda doorashada. Dowladdu waxay sheegtay in la doonayo doorasho qof iyo cod ah, laakiin xaqiiqada jirta maanta ma fududa. Amni darro weli ka jirta qaybo badan, diyaargarow la'aan farsamo, iyo isku dhac la'aan siyaasadeed. Su'aal, doorasho ma dhici kartaa 2026 mise waa hadal siyaasadeed oo keliya? Dad badan waxay aaminsan yihiin in waqtigu sii socdo, laakiin diyaargarowga uusan la soconin. Marka doorashadu soo dhawaato, mucaaradku wuu sii xoogaysanayaa. Siyaasiyiin badan ayaa bilaabaya inay dhaliilaan hoggaanka, inay shaki geliyaan qorshaha doorashada, iyo inay shacabka la hadlaan. Waxayna leeyihiin haddii aanan la helin nidaam cadaalad ah, ma aqbali doono natiijo kasta. Taasina waxay keeni kartaa cadaadis siyaasadeed oo sii kordha, banaanbaxyo, iyo xiisad siyaasadeed oo sare u kacda. Haddaba marka la isku eego dhammaan sawirka, waxaa muuqda in Soomaaliya ay taagan tahay meel kala guur ah. Waxaa jira 3 dariiqo oo cad: heshiis iyo horumar. Siyaasiyiintu way heshiinayaan, doorasho ayaa dhacdo, dalkuna wuxuu u gudbaa marxalad cusub. Dib u dhac iyo muran, doorasho dib u dhacda, khilaafyo sii xoogaysta, iyo waxa loo yaqaano kalsooni darro, qalalaase siyaasadeed. Haddii la isku fahmi waayo siyaasadda, waxaa imaan kara xaalad adag oo aan la saadaalin karin. 15 May ma ahan taariikh oo keliya, waa imtixaan qaran. Waxayna muujin doontaa in Soomaaliya ay ka gudubtay marxaladdii kala guurka, ama inay weli ku jirto wareeg siyaasadeed oo aan dhammaad lahayn. Adigu maxaad aaminsan tahay? Soomaaliya halkay u socotaa?